Hannaanka iyo habfikirka waa mid lagu kala duwan yahay dadka ku dhaqan dunidan guudkeeda. Gabar Hindi ah ayaa jartay boqolaal kiiloomitir iyadoo adeegsanaysa baaskiil si aabaheed oo xanuunsan ay dib ugu soo celiso hoygiisa. Waxaa lagu tilmaamay safar halyeennimo leh oo ay ku badbaadisay nolosha waalidkeed xilli ay taagan tahay xanibaadda ka dhalatay xanuunka coronavirus. Aabaha dhalay gabadhan oo ku dhaawacmay shil gaadiid markii la daweeyay kadib ayay gabar uu dhalay oo 15 jir ah soo iibsatay baaskiil ku kacaya $20 si ay hoygiisa ugu soo celiso. Waxaana arrintaas si weyn u qaadaa dhigay warbaahinta caalamka, gaar ahaana warbaahinta CNN ee laga leeyahay dalka Mareykanka. Kada gabadhan ayaa si weyn u soo shaabaxday iyadoo ka mid noqotay dadka loogu hadal haynta badan yahay baraha bulshada, ammaan iyo bogaadin kala kulantay gabar uu dhalay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. Aabaha dhalay gabadhan ayaa ku dhaawacmay shil gaadiid bishii Janaayo ee tagtay, waxa uuna deganaa gobol 700 mayl ka fog hoygiisa. Shilka kadib, aabaha dhalay gabadhan waxa uu u baahday daryeel iyo xanaano gaar ah, balse ma uusan awoodin inuu u soo laabto hoygiisii uu deganaa si ubadkii uu dhalay ay u xanaaneeyaan, balse gabadhiisan dhiiran ayaa u jartay masaafo dhan 200 kiiloomitir si ay dib ugu soo celiso hoygiisii. Tallaabooyinka xanibaadda ee ku saabsan xanuunka safmarka ee coronavirus ayaa kala jaray xiriirka dad badan, balse gabadhan 15 jirka u dhalatay dalka India ayaa noqotay gabadhii ugu horeysay si caqliyeysan uga badbaadisay waalidkeed xanibaadda iyadoo ay taagan tahayna safar dheer gashay.